وعنا ونكسن داوديال كسر رواد برنامج كوعي قبل شدة تلفزيون يونيفرسال ويدي كجي معنا يا حرونت التلفزيون كوكولة يحيي مقالة نيروبي برنامج كوحد للسعوديين دونا هديور بقدر مدة وهوده كوتشيرو أنا جوه عبد الولي حسين توكل bulshada oo boqolkiiba 70 dhalinyaro lagu qiyaasay waxay marqaati u noqdeen oo waayo badan oo wata marxalado kala duwan oo soo joogeen laga soo bilaabo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya caqabado iyo culeysyo isdaba jooga inkastoo bulshada siyaabo kala duwan u saameysay hoggaanka iyo maamul la'aantii dalkii hooyo u wajahay hase yeeshee caqabadaha ayaa si gaar ah u saameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed biday dalalka qurbaha si ay u helaan nolol ka duwan tii ay ka soo hayaameen iyo kuwa ku nool deegaanada dalkii hooyo badi dhalinyarada waa kuwan arag hanaankii dawladnimo ee Soomaaliya wali waxay u anqal taagayaan maalin uun inay arki doonaan sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya oo dib u noolaatay si ay fursad ugu helaan adeegyadii dawladnimo walow ay harjad adig ugu jiraan noloshooda waxana ay siyaabo kala duwan u sharaxayaan fahanka dawladnimo haddii aan ka hadlo fahankayga ay ku saabsan dhalinyarada ka yar ilaa iyo da'da 30 sano ee ku soo kortay wadamada qurbaha أنا كسر كرت دولة العنتا رمهانتي هرتا دبعتو أدي أد أدرن أيه نجوح السنة هذا أنا دلني ردا أنا كسر كرت أنا دولة العنتا وحنا كمية دبعتو داس وأنا نجوح جست دولة العنتا سيدا دلني ردا يتهريبك يا نال الحمد كويس تود ماذا قربها وحنا سبب أرنتاس عندي لهاي أنا دولة العن أنا قلنا دلني ردي أنا فهم سنين دنك إني وحقبت كدولة معناها دولة بأنا فهم سنين مركا وعندي كرنا وحيابها أكوبات عن كده حلني دولة الآن وحكمته كلا تجا أقوم هذا وحكمته سيدا كلا وحكمته دلني ردي أنا نهسن مال إسكوها جاجان جروب يكون مدوبان وأي أرجعني ماذا ورت دعنا كهلا أنا جنبي أهم وأي أرجعني ماذا كهلا وحيابا أنا كجوابي كرن صببته وحي تهي ما بنهم فهم في عن كما قبلنا فكرة في عن كما قبلنا وحي تهي دولة النظام كذا كما قبلنا وحنا مهمة أنا وحنا مركان صقل نمضمش أيام وحنا فهمنا بقى سيد وش قياس الدولة النمذ ويوحى تهي دولة أنت دولة وحيكون كلا دوينهين دولة النمذ وشرف يقيمه قف والبو قرنك يعني دولة أما قرنك ونسب شيكته ويعني وقيمة إيو شرف يهيبت بكوهلايا قرنك هدودمو وحقيمة والله ذا هاي مجرت هدي أتربتد إن أتكون لا تتشرف يعزو إيو محل دي هجري قيمة وإن أدهشا قرن هذا قرن هلين وح يعني نولل oo mustaqbal dheer ah oo dunida kula xisaabtanta ma helaysid aniga waa sida aan fikirkayga ka aaminsanahay dawladnimada dawladdu waa geed harweyn adiga ayaa ku nool ayada kuguma nool adaa ku nool dawladnimadu waa shacabka haddii shacabka iyo dhalinyarada fikirkooda uu khaldamo aniga waxaan aaminsanahay in macnaheedu waxa ugu badan oo dhibka u gaaraya ayaga ay yihiin waan dareensanahay adaan nahay bulshada Soomaaliyeed qarankeenu wuu dumay annaga hadda jiilka aniga qaranka ma soo gaarin laakiin waxaan aaminsanahay in aanan qaran la'aantiis waxba aanan qabsan karin waayo maanta hadii aad dib u kugu dhaco adduunka qaarad ka mid hadii lagu xiro waxa kaliya ah oo ku doodi karo ama wax ku qaban karo waa qaran qabiil waxba kuma qaban karo walaa maamul baana waxba ku qaban karin maamulada maanta dhalinyarada boqolkiiba 80 ay aaminsan yihiin oo ay leeyihiin aniga maamul hebel baan ka soo jeedaa maamul hebel baan aniga ku abtirsadaa aniga gobolkayga waa ii dhisan yahay gobolkaaga hadduu ku dhisan yahay wax uu ku qaban kara maanta haddii aad shakhsiyan muwaadin Soomaaliyeed baa tahay haddii qaaradaha adduunka qaarad ka mid ah ay dhibaato kugu soo gaarto waxa kaliya oo wax ku qaban kara waa qaran Soomaaliyeed waa dawlad calanka buluuga kaliya baa ku caawin kara calan maamul goboleed ma ku caawin karo
siday maanta dhalinyaradu ka aaminsan yihiin dawladnimada wax weyn baa ka qaldan baan u aaminsanahay waayo nin walba wuxuu yacnihi dawlad u haystaa inuu qabiilkiisu dawlad yahay yaa qabiilna dawlad ma noqdo sida darteed waxaan aaminsanahay in dhalinyarada boqolkiiba 80 fikirkooda ay u badan yihiin nin walba reerkiisa inuu u soo baxo macna nin khatar ah laakiin dawladnimadu waa isku tashi iyo wax wada qabsi haddaan ka hadlo fahanka dawladnimo anigu dhalinyaraan ahay dawlad kuma soo korin laakiin baahi badan baan u qabaa waan dareemayaa wax fiican baa naga maqan wix fiicanaana ma hayno dawladnimadu marka haddii aniga fikir ahaantayda aan ka hadlo waxaa weeyo nolosha dhan ee waxaa weeye bini'aadamka ay ku nool yihiin baahiyaha aan u qabna waxaa ka mid ah hadda halkan aan joognaa lacag Soomaali haddaan soo qaato oo halkan la imaado ma isticmaali karo lacag Kenya haddaan la tago wadankayga la tago waan isticmaali karaa marka dawladnimadu waxaa weeye ma ahaan ciyaara waana baahida ugu weyn ee aan qabno dad waxaa weeyo dhalinyartu ma soo arkin dawlad maadaama ay soo arkin way isweydiinayaan seen dawlad u helaa marka fikirkaygu waxaa weeyo dawlad aan raadsano waxaa kaloo madaxda Soomaaliyeed aan fariin ahaan ugu fari lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed dawladnimo ayaga keeni kara maadaama dawlad aysan soo arkin sababtoo ah difaaca qaranka ayaga keeni kara waxa anigan hadda November 2018 waxaan tagay Xamar waxaa la igu yiri markaad askariga qoranayso haddaad rabtay inaad difaaca qaranka ka mid noqoto oday xildhibaan waa inuu ku soo kaxeeyo waxaan dhihi lahaa dawladda Soomaaliyeed ha ka daayaan meesha dadka shacabka ayaga dawladda keeni lahaa taasaa meesha ku jirto ha laga daayaan dhihi lahaa dhalinyaradu waxay ka aaminsan yihiin wax fiican inay tahay manaysan arkin in la tusay u baahan yihiin marka odayaashii naga horeeyay inayna tusaan dhalinyartana wax fiican lagu hago wax xun baa lagu hagayaa dhalinyarada oo qabyaalada oo aan dawlad ahayn marka waxaan dhihi lahaa dhalinyartuna ha baraarugaan dawladnimada aanan arkin aan raadino waxaan ka haysanaa sheekooyin iyo muuqaallo hore xataa waagii dawladda Soomaaliya ay jirtay ay noolayd waxaan daawaday barnaamijyo badan oo ka mid ah fiidiyoyadeed beera qodotada dadka beeraha sameeya oo waxaa weeye beerihii soo dhoolatu sameynaya yaambadii bay halkan ku wataan wayna gaardiyayaan waxay ahayd dawladnimo ahayd marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta aanu dawlad raadsano sidii aan waxaa weeye wax uga baran lahay كسوكو aragtiyaha dhalinyarada ay ka qabaan fahanka dawladnimo aysan ku soo barbaarin cali maxamed isaaq oo isagu kamid ahaa dadkii dawladnimada ku soo shaqeeyay waxa uu sharaxayaa farqiga u dhaxeeya dawlad la'aanta iyo dawladnimada adeer waa mahadsantahay waana dhowhay dawladnimada iyo dawlad la'aanta marka hore horta wax la barbar dhigo waa ka weyn tahay dawladnimada حيالي دولة نكي هايست هرتا وحاويان وانين ما أرتي دولكيس جوجو وناكسن أو متقانا آدي ما أرت أون معيسن دولتنا آن وبربر إيو سيغا إيو قحوتي إيو متقانا قابدرو حيالي دولة مرها داي بربرتو هذه نمبا بربرايا وحاوي نيدا بربرايسا شرعيغا بربرايا وناقبا بربرايا متقانا دغناشي با بربراي wax kasta burburay horta dawlad wax la heli kara ma aha dawlad baa qiimo leh wax la isbarbar dhigi karana ma mada kale waxa weeyaan muddo badan baan maarkada dawladeena burbursaneed maxaa qaab oon hayna wax wanaag oon hayna male meel walbaan ku daadsanahay kii naga hooseeyay iyo kii naga sareeyay maanta anagu hoos noo eegay maxaa tihiin maxaad qaban kartaan maxaad dadna hoteelin maxaad xoolo ma tihiin ari ma tihiin waxaan yani maanta waxaan ugu tilmaamaba ma hayn marka sida awgeed marka waxa weeyaan dawladnimada oo baa fiican oo wanaagsan oo waxtar leh oo niyad leh oo deganaansho leh oo qabow leh oo saad rabto u dhaqmi kartid xafiiskaad leedahay geli kartid waxa weeyaan dawladnimadaas horta waxa weeyaan dawlad wanaagsan horta aniga dawladii maxamed siyaad barre ka horeysay horta war uma hayo الله ونحرسته ورقمها سياد برا الله كل ما نو كينيا كل شيء كينيا جوجي
markii aan waddanka tagay cabdirashiid oo nool aan tagay anigoo jooga yaa cabdirashiid dhintay marka maantayda dhimashadiisii madax fiicdi loo ridaayay iyo xabaddii maaragtay loo ridaayay saana u taagnaa marka dawlad qiimo leh oo wanaagsan baa ilaahayna siiyey oo noo dhalatay oon haysanay marka dawladda marka waxaa weeyaan waagii abaarihii wax ka dhacay waad ogeed waagii daacuunka waad ogeed sida loogu gurmaday shacabka loogu gurmanay halabuur Rashiid Aadan oo Yuusuf oo igala qayb galay barnaamijka wacyiga bulshada waxa uu qabaa aragti ka duwan tan ay qabaan badi bulshada inteeda kale oo waxa uu aaminsan yahay in marka hore dib loo eego waxay tahay bulsho iyo dawladnimada ay u baahan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda Universal su'aasha ay isweydiisay oo ah bulshada iyo dawladda ama fahamka bulshada iyo dawladda marka waxaan ku horeynaynaa marka hore waxa ila quman inaan fahamka bulshada dawladda intaan sheegin inaan isweydiino horta bulsho waa maxay ama ahaanshada bulshadu waxay tahay dabadeedna aan u hormarro waxaynu u bixinay dawlad oo ah baahi ay bulshadu qabto marka haddaynu ku horeyno bulsho horta waa maxay sida dhabta ah ay qabaan culimada cilmiga bulshadu waa xayawaan wadar noole ah haddii aynu nidhaahno xayawaan wadar noole ah oo aynu wadar sheegno waxaa imaanaysa wadartu inay u baahato hab kala dambayn maamul hoggaan iyo sharci taasoo dawlad noqonaysa ugu dambayntii marka si aynu taa u fahamna lafteeda waxaynu u noqonaynaa qur'aanka kariimka ah siduu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa bidaabatin fi lardi walaa taa'irin yatiiru bijinaaxayhi ilaa umamun amhaalukum ma jiro wax socda oo luga ku socda iyo wax duula ilaa haddii ay jiraan waa ummado adinkoo kale ah marka maxaa laga faa'iidayaa ummadaha adinkoo kale ah adinkoo kale marka la leeyahay waxaa laga hadlayaa bini'aadanka macnaheedu waxaa weeye quraanjadu waa ummad yeyduna waa ummad wadaru noolahoo dhammi waa ummad mid walboo ka mid ihina wuxuu u baahan yahay inuu yeesho maamul iyo kala dambayn iyo dawlad bini'aadankuna waa la mid marka ay sidaa tahay ma jiro bini'aadanku marka haddaynu nidhi waa ummaddii waxaa soo dhexgelaya ama bulshadii kala duwanaansho wax la yidhaahdo laakiinse kala duwanaashada haddii aynu nidhaahna ka warran quraanjadu ha u noolaato sida shimbiraha ama shimbiruhu ha u noolaadeen sida shinnida ama sameehee aynu nidhaahno dhurwaayadu waa wadaru noole ha u ekaadaan sida libaaxyadoo kale ama hannaan dawladeed noocaas ha yeeshaan waxay ila tahay taasi waa khalad bulshooyinka adduunku way kala duwan yihiin bulsho waa kala midab bulsho waa kala af bulsho waa kala dhaqan bulsho waa kala qabiil haddana bulsho waa isku dawlad su'aashu marka waxay tahay haddii aynu sidaan nidhi oo aynu nidhi bulsho way kala duwan tahay maxaa keena in bulshana ay u hirgasho hannaan dawladeed bulshana ay u hirgeli weydo waa su'aal meesha ku jirta waxaynu haysannaa laba shay waxaa la yidhaahdaa ahaansho shayna waxaa la yidhaahdaa baahi ahaanshada bulshadu ay kala qabiil tahay ahaanshada bulshadu ay kala midab tahay ahaanshada bulshadu ay kala aydolojiya tahay waa ahaansho baahida bulshadu ay dawlad u qabtana waa baahi marka su'aasha waxaa weeyaan falsafada meesha ku jirta ma baahida ayaa la eg ahaanshaha mise ahaanshihii baa baahida la eg oo waxaynu samaynaa ma waxaynu nidhaahnaa bulshadu ha la ekaato hannaan dawladeed mise hannaan dawladeedka ayaa la eg bulshada taasaa isweydiin mudan waxaa jira suugaan soomaaliyeed oo aad noogu tilmaamaysa middaas oo ina tusaysa xayawaanka wadaru noolahay sida uu ula tacaamuli karo dawladdiisa waxaa ka mid ah gabay aan soo gaabin doonno in yar ka soo qaadan doonno oo uu leeyahay maxamuud cali beenaley wuxuu tusaale noogu soo qaadanayaa ariga oo ah xayawaan wadaru noole ah arigu waad aragtay markuu asagoo badan fakado ama uu dhumo waxaa la yidhaahdaa goosan waxba uma baahna keligiisaa socda laakiinse marka arigu uu laba neef ama mid yahay oo uu baxsado 12 maanta wuu ordayaa wuxuu raadinayaa xayawaan kale ama ari kale si uu la noolaado oo la nooca dabeedna markuu u tago arigii kale asagoon lo iyo geel midna aadin arigii kale markuu u tago way ishaybsanayaan waxaa imaanaysa kala duwanaanshadii bulshada dhexdeeda wuxuu ku leeyahay anigu kuma aqaano dabeedna waxaa dhacaysa labadaa neef ama neefkaas inuu maanta oo dhan qayliyo oo uu ciyo asagoo la jooga arig kale marka de dumarku waxay odhanayaan gabdhaha ariga la jooga naaheedhe ariga ma neef qalaha ku jira waa maxay cida badan maxaa yeelay neefkan ari buu la joogaa haddana wuu qaloonayaa taa waa mid maxamuud cumar beenaley asagoo gabaygaas noogu sheegaya kala duwanaashada noocaas wuxuu yidhi ceesaantii hallowdaa
hadday cido qalaad raacdo cawskaaga daaq lagama helo kanuba waa cuude waxayse caafimaadaan markay la cabta keediya buu yidhi maxaa yeelay ceeshaantaa habowday ee ariga kale u tagtay ee haddana ku xasilila haddii la yidhaahdo war cawsna waad haysataa cirna waad joogtaa arina waad la joogtaa ee aamus oo fariiso yeeli mayso 12 maanta way qaylinaysaa waxay raadinaysaa helitaan ay hesho arigeedii bay rabtaa taa waa mid waa waxa dib bulshooyinkeena Soomaalida ee qaxay ee Yurub iyo Ameerika tagay waxa ay la qaylinayaan weeye iska daaya kuwa islii jooga ayaa waxay raadinayaan inay noqdaan goosan qofka Soomaaliga wuxuu ku leeyahay anigu meesha Soomaali ma degto ma doonayo maxaa yeelay wuxuu rabaa goosan asagii oo kala inuu helo taa waa mid maxaa yeelay islii iyo xamar labadana cirna ku yaala dhulna waa ku yaala ee waxa diidaya in uu la noolaado wuxuu rabaa inuu helo noocii dadka asaga uu ka ahaan burburkii dawladnimo oo saameynta ugu culisay ka soo gaadhay daayarta mustaqbalka iyo bulshada inteeda kale haddana Cali Maxamed Isaaq isagu waxa uu sharaxayaa waxyaabaha laga dhaxlay maamul la'aanta iyo farxadkii bulshada dalalka caalamka dadnimaad loo xaniinyo leebanahayn oo adduunyada yaani waxa weeye meesha rabta la qabsanaysa afrikaankan hadda dawladnimada qaatay oo mataqaana hadda anaka noo faanayo qaxootiga aan ku nahay waa dadkii aan dawladnimada anaka mataqaana dawladnimada anaka waliba wax ka soo qalqaalinay oon taa kuleynay malaysa minisanawi waa ninka lagu tababari jiray mataqaana meesha la yiraahdo ay xalane waxa way South Africa iyo muxuu ahaa Namibia iyo Zimbabwe iyo waxa soo dhan waxa way meeshaan aan maartay dadkooda jabhadaha aan ku tababari jirnay mataqaana xalane marka dawladaha soo dhan baan ahayn marka hadda anaka meesha sagnay walaalayaal waxa way waa ka calool xumaanay caloosha ay wareegaysa yaan markii la yiraahdo dawladda ka sheekay markii la yiraahdo وابا الدلاعي أنا بالدلاعي اللي قد عفا يقف عن هالهد وحاوي نورت الشعب كصومالي قيمة شعب كذا قيمة ولا وحاوي نورت النن أسكرية ماشي أنا ضو حاوي أنا كليتك أنت اللي ودك تبغى كوجا هابا اللي قولي هاي ماشي وحاي هاد أسكرية نن أسكرية الله ما هاللي كره جون ومديه كره نن شعبه مغليسة طريقة مركز مريسة حتى أولي هاد ورنك كادم بيلو يسوق بهدي شال حالكاس على جار بابا اللي يجري سوق بهدي الرياضة كليتك وزودك كتربان بود هدي الرياضة حتى وحاول شال مراعيسة فيري شال مراعيسة ولا لو مراعيسة وليك صدري أنت سيهد أسكري كليتي شعب كليتي لقوانا إيو شعب يعني الطريقة اللي قولوا مر ما إيو شعب العين أي ما بقى من ماشي أنا قذات كنت لو قبت حلقة الوتر محانا يد وحن هاي ملك ها طريقة ضم رئيس الوي كنا كتاب بلشوا دكتور لو قوانا حتى معها بهالكي marka nin walbana saasa meel kastana saasa ku arn kunnahay bal Liibiya fiiri waxa laga sheegay waxay dhulkan aan ma artay adduunyada fiiri meel balba aan ku xirnay badeena fiiri marka waxaas wax la soo dhigi kara miya wax la soo dhigi kara maaha wax la soo dhaweyn karnaa tamaha dad ladan oo nool oo shaqaysanay oo dal iyo dadba leh baanayn haddana dalna milihin dadna milihin ha waxaan nahay malad waa dad iska yaacay oo iska ma artay firfirdoona maxaa yeelay laakiin maxaa kalafay waxa kalafay maxay tahay waxa weeyaan hees aan la dhageysan jirin baa jirta oo la dhageysanay markii raadiyaha soo gashay la iska daman jiray eedaba darro waxaan ka gaarnay raadiyaha markay soo gashay waa la daman jiray markii doonan waxay noqotay wax macaan heebad waxaad ku leedahay dhulkaada hooyo u fiirso anigoo dhageysan jirin oo maqli jirin baan maalin waxaan kula kulmay nin askari ah oo Kenyaan ah oo nin laba wiil oo askar Soomaali ah inta ul u qaatay dhangad la dhacay oo dhulku ku wada dhaceen anigoo labasan waxa la dhihi jiray war saad u la hadashay saad u la hadashay saad shughul u dhihi kartaa baa leeyahay markaasaan waxaan soo xasuustay heesti oo macaankeeda markaas un baan arkay ebel maba moodin inay macaan tahay heybad waxaad ku leedahay dhulkaada hooyo waxaan soo xasuustay waa aan tababar ugu jirnay meesha la yiraahdo cadaad ley meesha kumaandooska lagu tababara hargeysa burcay u dhaxaysa anagoo tababar ugu jirna waxa weeyaan wiil yar baa intuu askari haba intuu baxay iyagoo askar badan magaalada dhex maraya baa gabar caysay markaas iyagana caayay wiilkiina caayay gabadhi markay caysay isagna caayay iyada caysay isna uu caayay habeenkii wiilkii waxa lagu dhigay ilaahay baa ogaa sayid gabar Soomaaliyeed u caysay canshuurtii yaa ku siiyay kabaha yaa ku gaday sarwaalkii yaa ku gaday shaarkii yaa ku gaday baa nala dhihi jiray waxaana la dhihi jiray meesha adigu aad joogta gabar Soomaaliyeed haddaad ku xumayso nafsiga isiga ah waxa weey walaashaad un bay u tagaysaa hadhowt meesha ay walaasha joogtana askari baa jooga
nafsi walaasha ha u gelin baan la dhihi jiray fahanka bulsho iyo aragtiyaha kala duwan oo sabab u noqday khilaafka iyo isjiidka Soomaalida Rashiid Aadan oo Yuusuf waxa uu mar kale isagoo sharaxaya tusaalooyin wax ku ool ah isagoo sheegay in dawladaha shisheeye iyo dadka diidan midnimada Soomaaliya ay ka faa'iideysteen kala qabqabka dadka Soomaaliyeed midda kale falsafkii weynaa Cabdullaahi Macallin Doodaan ayaa wuxuu na tusayaa guul darrada ku timaada xayawaanka wadar u noolaha ah inay tahay khilaaf asaga dhexdiisa ka dhasha marka si uu taa noo tuso wuxuu noo soo qaatay tusaale xayawaan la mid ah bini aadanka dhanka wadar noolaha waa shinnidu waxaan ognahay inay leedahay boqorada shinnidu ayadaa madax ka ah haddii aynu dib ugu noqono fiqiga islaamka waxaa la yiraahdaa saan ku maray fiqiga oo dhan kitaabka marka laga hadlayo beeca wa shira waxaa la yiraahdaa shayga la iibsanayo an yakuuna maqduuran shay la awoodo waa inuu yahay in la qabto ee haddaan ku iraahdo shimbiraha siyaacaya ayaan ka gaday dee beeci ma ansaxayo maxaa yeelay shimbir in la soo qabto suurtagal ma aha laakiin waxay ka soo reebeen shinnida yiraahdeen haddii la hayo boqoradeedii waxaa suurtagal ah inaan ku iraahdo waxaan ka iibsaday shinnida halka duulaysa maxaa yeelay tajribo waxaa lagu ogaaday hoggaankeedii boqoradda ahayd haddii la hayo in aysan meel fog aadaynin oo shinnida kale laga iibin karo marka Doodaan si uu noogu tuso xayawaan la mid ah oo wadar nool ah tusaalaha dawladnimo wuxuu yiri shinniduba hadday malab tubto oo meel tif kaga siiso intay tuduc walaala ah toobada u joogto geedaha taraxan kama naqaan mid ay ku taalaay markayse tala seegto ee bala taftaafayso mid waliba anaa talinaya ayay kob isla taagtaayeen markaasay dhawaaq tay oran midiba taageede xiinkeediba u taga dabeed cadow ka taagroone reerkay tigtiganaysay baa toobka loo culane sidaan loogu turin baa dabeed wada taqaaniina buu yiri asagoo ula jeeda guul darrada ku dhacda shinnida oo ah xayawaan wadar nool ah inay ka timaado khilaaf dhexdeeda ah kaas oo ah in ayadu ay istusto jiritaankeedii tusaalahaas wuxuu si dhab ugu ruumayaa ummadda Soomaaliyeed hadda waayo Soomaalidu marka ayadu qaylido islayso ayaa cadow kala imaanaya markaas ka sii qaylinaysa marka waa sida weeyaan marka haddaynu ku soo noqono dib ahaan waxa keenaya inaynu kala fahamno shay cusub oo ah waxa la yiraahdo inuu jiro hanaan dawladeed waxa lagu oranayaa Soomaalidu dawlad ma rabto okay waa halad khaldan Soomaalidu inay community tahay ugu filan inay dawlad qaadato ereyga labaad oo ah Soomaalidu diin ma rabtay qabiil bay rabtaa qabiilku waa ahaansho ma aha wax la tartami kara ahaansho dawladnimada dadku ayagoo kala qabiilay dawlad u baahan yihiin laakiinse waxa dhabta ah oo khaldan oo Soomaaliya ka khaldan Soomaaliya qabyaaladnimo burburinin qabiilnimo burburinta iyo dhibka waxa keenaya waa hanaan dawladeed khaldan qofka Soomaaliga ahi waa qabiil qofka Soomaaliga ahi waa bulsho qabaliyo isir wadaag ah bulshada ayada ay hanaan dawladeedkiiba u baahan tahay waxa la doonayaa marka in loo geliyo hanaan dawladeed aysan lahayn dabadeedna waa burburayaan wixii tusaale waxa noo ah kala duwanaanshada ideolojiyada ama ergada Soomaaliya markii ay dawlad qaadato 1960 waxa loo keenay hanaan dawladeed la yiraahdo dimuqraadi 9 sano shaqeynayay oo qarab uu ku shaqeynayay 9 sano hanaan dawladeedkaasi kama u tagin oo ma u reebin wax la yiraahdo dad dimuqraadi ah oo bulsho ah oo mujtamaca oo aynu maanta naqaan oo aan iraahno waa bulshadii ay abuurtay dimuqraadiyadu kasako waxa ka dambeeyay wixii la oran jiray hanti wadaagii jiray 20 sano miyaynu ilaa hadda haynaa ideolojiyada marxism leninismka la yiraahdo in ay reebtay bulsho marxisiyad la yiraahdo oo Soomaaliya waxa jira dad Soomaaliya oo shuuciina ma jiro laakiin qabiilka ugu yar Soomaaliya wali waa nool idan waxay ku tusaysaa qabiilku inuu yahay ahaansho dadka qabalka uma baahna in loo soo minguuriyo ideolojiyad khaldan ha ka timaada Arab ha ka timaada cadaan Soomaalidu waa bulsho qabali ah waxay xaq u leedahay inay hesho hanaan dawladeed ay ku dhidibtay maskaxdeeda ka keentay muruqeeda ku dhidibtay maalkeedana ka bixisay ma jiro wax qabyaalad la yiraahdo oo dawlad burburiya bal hanaan dawladeedka khaldan ayaa ka samaysan qabyaalad marka aragtida dawladda aan ka qabo waxa jirta aniga hal shay war hal raadiyo hanaan dawladeed dawladdu hal mid ma aha Russia la hanaan dawladeed ma aha Yugoslavia Colombia la hanaan dawladeed ma aha Korea Mareykan la hanaan dawladeed ma aha Scandinavianka ummad walba oo dunida ku nool waa in ay yeelato wax la yiraahdo hanaan dawladeed ee ma jiro qabiil dad burburiye iyo qabyaalad wax la yiraahdo wax laysa ma jiro qabyaaladu just kama badna in ay tahay corruption hanaan dawladeedka aan haysano asaga ayaa abuuraba qabyaalada kala maxay yeelay fiiri marka aynu doonayno ummad Soomaaliya oo qabyaalad ah kala qabiil ah inaynu u sameeyno hanaan dawladeed ma waxaynu isticmaalnaa calaamadaha xisaabta
loo geeyey lagu daray lagu dhuftay mise loo qaybiyey waxaynu isticmaalaa Soomaaliya hadayna wax la yiraahdo dawlad qaybsi asalka dawladda kuma jira wax qaybsi la yiraahdo waxa ku jira wax la yiraahdo wadaag Soomaaliya uma baahna dawlad qaybsi waxay u baahan tahay dawlad wadaag qabaa'il kuraas loo qaybiyay qaran lagu ma noqdo ee waxa lagu noqdaa qaran qabaa'il la isku daray ayaa noqdo qaran aad baad u mahadsantihiin aragtiyaha bulshada iyo tusaalooyinka muhiimka ah ay qabaan dadka ay kala qayb galaya wacyiga bulshada haddana waxay soo jeedinayaan talooyin waxtar ah oo salka ku haya fahanka bulshada iyo dawladnimada iyo hanaanka loo baahan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku baaqaa in nidaamka iyo dawladnimada aan ku dadaalno dhalinyaradana la fahamsiyo iskuulada iyo goobaha waxbarashada lagu baran dawladnimo waxay tahay nidaam iyo amni wuxuu yahay in ummadda la fahamsiyo ayaan soo jeedinaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu soo jeedin lahaa inay ka baxaan dawlad la'aanta ay ka baxaan qabyaaladda lambar 1 waxa keenaya burburka dawlad la'aanta waxa meesha ku jirta qabyaalad meesha laga saaro laga shaqeeyo Soomaalinimo marka taladeedu waxay tahay waxaan u soo jeedinaa waxay tahay waa inaan marka aan midoobna aan u tashana guud ahaanba sidii aan ku horumarin lahayn wadankeena taasoo khibradeena waxaana sii kara dadkii naga horreeyay oo dawladnimo xitaa soo maray anaga waalkii wax anaga aan garan karno sidii ay tahay waayo waxaan ku soo karnaa waa iska wajeedaa ba qub iyo qac waxaynu u baahannahay wax la yiraahdo talo guud baynu u baahannahay talada guud maxaa noqon kara waxaa jira 3 waxyaalood oo Soomaalida ay ku maahmaahdo maahmaah waa halku dhigida saddexda waxayna tusayaan hal ujeedo laakiin dadkii sameeyay ayaa degaan ahaan kala duwanaa waxayna tusaysaa inaan wax isku dayno oo aan daalin halku dhigo horeey waxa weeyaan colka waraf ma lagu deeyo hadda colina waraf wax ka qaadeen waa la ogyahay waa isku day halku dhiga labaad ayaa wuxuu leeyahay dameer ceel ku dhacday koykoyna waa lagu dayaa oo dameer haday ceel ku dhacdo soo bax baa la yiraahdaa inay soo baxeen waa la ogyahay wax loo leeyahay waad fahamtay halku dhiga saddexaad waxa weeyaan nin hal ka luntay haan gacanta gali ayadana inaan hal haan galin waa la ogyahay maxaynu u baahanay aniga waxay ila tahay talada aan u baahanaa waxay tahay warkuraasan aan qaybinayno iyo dawlad qaybsigan iyo baarlamaan qaybsigan intaynu iska dayno hal aanu xisaabtanno aanu sameeyno halka aanu sameeynayna waxa weeyaan in aynu raadino wax la yiraahdo hanaan dawladeed lagu haboon hanaan dawladkee ayaanu qaadan karnaa Soomaalidu hore markay guuri jirtay sahan baa ka horreyn jirtay war ummadda ha loo sahamiyo oo wax sahan la yiraahdo ha loo sameeyo si loo helo meesha la degayo laakiin haddii la guuro ayadoon la sahansan waxay ila tahay kursigan la isku haysto inuu soo faa'iido keeni doonin Soomaali in kursi u baahan tahay waxaan ku darayaa marka maanso yar oo aan qabiilka uga hadlayo oo kooban maansadan waxa la yiraahdaa qareen qabiil waxayna tusaysaa qabiilkii oo Soomaalida la yaaban balafteediiba wuxuu ku leeyahay qabiilkii waxaan ahay qabiil oo sida aan anigu qabo adinka qariban oo garan qaabka nolosheed anigu qalad gaar ma leeyahay kama liita qayrkay afar iyo bar qaybihii qaamuuskayga kuma taan qarannimo ma diidani hadalkiinan qadafka aqaan sheegadkiinana qaatibaan ka taagnahay qareen baan u baahnahay iyo qaalid daacada dacwadeyda qaadee qoom yaho wareersanay horta qalinka soo qaad buugara bal soo qabo dhowr qodobna iga hor qarniyadii hore tagay aadmigii isqoonsaday qaska maanta wali jira maxaa qorta ii suray qaabiil maaniga iri qudhago walaalka u soo diray quraabkii boomamkii qumbuladii horashiimo lagu qubay qaymiyaan ku leeyahay quwadihiis bahaystee Hitler horka kaga qubay dagaalkii qabooba maaniga qorsheyn jiray qaxooti qaylada Ukraine iyo qaxootigan adduunyada bari dhexe qulqulatada quusta nabadda laga yahay maana lay qabsanaya qabqab dhaafay weligii ma qabiil umbu noqon maana qaybshay Korea qoom yaho wareersanay qodob kalena wuxuu yahay war haddii aad qabiilkiyo kala qolada diidaan qaran wada mataana ah oo wax qaybiyaa jirin qaadirkeen ma uumine diin la isku qabayo la isku quursay midabka maxaad qaadanaysaan de markii Soomaalida waxa la weydiinayaa waxa ay rabaan ilaa kala duwanaashada markii soo jiraya aad baad u mahadsantahay aniga dhalinyarada waxaan dhiilaa walaalayaal dhalinyaro anaka waa gabownay waa tagnay waxa weeye wadankiina qabsada wadankiina wax ku qabsada anaka inta qaybtaan waa ka soo istiraacnay qaybta intii ugu fiicneed waa ku soo istiraacnay anaka hadda waxa weeye socodun baa wadan leenayo maar aakhiro marka waxa weeyaan idinka wadanka leh ka shaqeysta guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wacyiga bulshada ee telefishinka Universal oo idinkaga imaanayay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya waxaana barnaamijka halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo ah Cabdi Wali Xuseen Tawakkal.